Halo, Nurdi Syah. Halo, aku maqla. Nah, aniga raalnaho waan ku yaray 114 raalayga aho mar daba ma dhacaysa insha Allah. So ani ma ana filaynin taas inay dhacayso fahant. Okay. Laakiin Aad qalad u dhici karaa carabiya ilka ishaya dadkina raaliga intay iga noqotaan jeclahay mar walba farxadena soo celisay xarirkeena barka kasii bilaabano saa jeclahay sawaar lalo ana laakiin marlada may dhacdaa taxaqab. ma dhacaysa insha Allah ma dhacaysa inay dhacayna ku ma dhacaysa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلي مقاركة إيوه وزير كيني وزير فرحان waxaad u jeedaan maanta waa fadhiguna waa maalintii ugu horeysay aan sameynayo waxaad iga barateen aniga wadooyinka su'aalo warsanayo maanta ayadoon qofna i garab fadhin oonan waraysi qof ka qaaday isan jirin ayaan fadhiyaa maasha Allah saad ogeedeen maalmahan waxaan wadnay barnaamij la magacbaxay saamax walaalka ama walaasha xaliyaha khilaafaadka daawasho wanaagsan fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar haddii aad hore noola joogtaan like iyo share ku qaraac lacag ma ahan dadka cusub nagu soo biirayo welcome ayaan idin leenahay soo dhawaada meesha waa meeshiinii channelka waa channelkeeni maqaam channel like ta share ta wax waliba noogu qaraaca noo smartee waa iska lacag laan maanta waxaan idin wadaa saad ogeydeenba barnaamijkii waa u socdaa waxaan joognaa in ay naga soo wacayaan qurbaha dad joogo iyo dad dalka joogo oo aan xalinayno khilaafaadkooda maanta waxaa jirtaa gabar naga soo wacday dalka gudihiisa inkastoo ay naga dheertay aysan nala joogin iyo qof ka maqnaa dalka oo aan rabno asagana inaan wacno gabadha ayaa hadda wacaynaa si ay wiilka noogu soo dirto ayadana ay u sheegto khilaafaadkaas uu dhacay iyo waxyaabaha sababay wiilkana waa isku dayaynaa in uu aan qabano oo aan meesha xalin ka dhalino oo aan heshiisino dibna ugu soo laabtaan heshiiskoodii xiriirkoodiina dib u bilowdo maasha Allah waxa muuqaalka meel dheer gaarsiin karo waa idinka like share-ta hala baqiilina insha Allah waxaan gudagali doonaa labadii khilaafka ka dhaxeeyay sheekadooda si aan u dhameystirno ama aan u soo xalino khilaafka ka dhaxeeyo oo aan wadadoodii wanaagsaneyd ee xiriirkoodii wanaagsan dib ugu soo celino saad la socotaanba laba qof oo isku xanaaqsan misna waxyaabo qodad ka dhaxayso haddii aad heshiisiiso waxay aad ka faa'iideyso waa ajir maasha Allah haddii aad isku dirtana dee dambigeeda waxaan hadda u fadhinaa waa inaan heshiisino wiil iyo gabar xiriir lahaa sideen ku heshiisin karnaa waxaan ku heshiisin karnaa waa inaan wiilkana qabana gabadhana qaladkeeda u sheegno amaba wiilka qaladkiisa u sheegno qofka qalad lahaa in qaladkiisa loo sheego qofka kalena laga sameyn xiro oo laga raali geliyo marka maanta kulay qofka qaladka lahaad awada arki doontaan hadda iyo u sii gudagalna muuqaalkii qofka qaladka lahaana markaas u sheegaynaa qofka kalena markaasaan aan raali gelinayna isla socod wanaagsan qofka ku horeeyayna waa gabadha ayaa nala soo xiriirtay wiilkana ka xanaaqay marka iyada baa noo sii faahfaahinayso waa wacaynaa insha Allah الو السلام عليكم الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته waxaan rabaa marka inaa ii sheegto sheekada say ku bilaabatay iyo khilaafka sidee ku jiro marka bal magacaaga horta iga bilow aniga bijaara la yidhaahdaa
waxaa ii sheegtay inay wiil iskhilaafteen oo haddana la rabo in la xaliyo xaaladda marka sida khilaafka ku bilowday iyo sida iskugu dhacdeen nooga sheekay waxyar walaalkay wuxuu ku bilowday horta wiilka waa ku taawada socono muddo jacayl laga dhexeeyey marka anagoo hadda isku wuxuu iga soo adeegiyay lambar cusub ay soo wacay lambarka cusub soo wacay marka wuxuu igu dhahay bishaaro miyaa aaban ku yiri markaas wuxuu dhahay qofka jacayl baa ag taagan mise ila jooga markaasaan ku yiri qofka aniga jacayl adigu ag taagan waa keeyaa waaye baan ku dhahay waa tikiyey marka anigana waxaa diidanaa lambarkeyga lasoo qaadanayo waa nacbahay markaan nambarka ugu soo galay marka waxaan dhahay inaa wax xubsadaa rabay isagana wuu diiday inuu ii sheego wuxuu dhahay aniga horta waxaa la dhahaa nin Ridwaan la dhaho Ridwaan Isaaq waa la dhahaa ma maqashay haa waa maqlaa ku dhahay YouTube ka arkay wuxuu dhahay marka labada qof is jecel baan isku tijaabiyaa markaas wuxuu dhahay qofkaas isaga ila jooga magaciisa inaa sheegtaa rabaa markaasaan ku yiri magaciisa marka ani magacna ma aan sheegin laakiin marka waa ku jira telefoonka dana marka loogu soo celiyay markii dambe marka maxay hadalka ani waa isku qeelna waxaa ku dhahay magacna ma sheegin laakiin waxaa ku dhahay qofka lambarkeyga ku siiyey iyo qofka ayaa waayay baan ka badbadiyey adi marka isfahan la'aan bay ku dhamaatay anigana marka qadka telefoonka waa ka jartay waa farahan ka qaaday marka already ninkan marka codkeygii uu wiilka u diray ninka wiilkii aan wada soconay wuxuu ka dhaadhiciyey markiina aniga aqayaan leeyahay oo misana wax jacayl aan u qabin oo ana waxba u hayninba qoftan daacadku maaha camal hadda adiga asagana wuxuu ugu yiri daacadda tahay sheeg qofka magaciisa markaasaan ku yiri marka daacadnimo inta iska dhaysid yaa waayo qofka ii sheegan ku dhahay isaga wuu adkeeyay ana marka telefoonka iska jirtay marka waa iska dhaafay goorma aad marka ku soo wacay marka wallahi waxa laga joogaa 3 bari yarka imisa sana xiriir leedahay 3 sana xiriir leeyahay sanadka cusub afarna marka qaladka halaas oo saasan buu dhacay magaca sheegayso ka xanaaqmay wiilka isaga wuxuu ka xanaaqay coduu ii soo diray markuu ninkan codkeygu u diray isaga coduu qadka iga soo galay ana markiina isaga iga soo adeegay waa dareemay marka waxaan dhahay coduu ii soo diray waa qayaantay maxaa magacayga sheegaysay uu dhahay markaasaan ku yiri marka aniga magaca markaas sheegaya ku dhahay inaa media nacda waa ogtahay ku yiri wala dadkii la soo qaatay aan muhiimada saa ugu siiyay marka wiilku waa isku dhacday waa isku xanaaqnay isagana aad u xanaaqay ana marka waa u dulqaadan waayay muddaadii uu telefoonka inuu ga qabto wuu diiday marka waana kala aamusnaa okay codkii oo Ridwaan asaga u diray adiga ku soo celiyay miya maya codka asaga Ridwaan inuu soo celiyay laakiin uu ii sheegay wax walba waxa ku hadlaysay waa maqlaayo ilahay sax marka waxaan dhahay ii soo diray ku dhahay uu adkeeyay marka wuxuu dhahay waxa ku hadlaysay telefoonka jiray waxa dhan waa la socday waa ku dhexlaaway adii markii lagu soo wacay ninka qadka ku jiray waa la hadlayay asagana wareysigaadu dhigeysanayay codkeygu dhegeysanayay ani marka intaas waxa ma sii ogeyn marka wuxuu dhahay waa ku dhegeysanayay ani qadka ku jiray adinta lagu wareysanayay okay sidii marka ku xanaaqay yarkii uu kaaga aamusay oo sidii ku aamusay waa in badan wacay telefoonka iga qaban waayay marka intaas la aligeed marka ninkan inuu isaga khilaafka bilaabay waxa soo kaleetana ma fiicna in la sameeyo ani isaga xiriirkeena sida qof dad 3 sano soo wada socday misalada maxay xiriirkooda si saalan ku biro waa qalad sax marka wiilkaas walaalkay baa ka shaqeeyay arrintaas waxaasna ma fiicna waa dulmi ilaahay raali kamahan anigana waa ka xanaaqay marka hadda kulay ina xal laga gaaro marka yarka wuxuu u qaatay inaa xiriir kala leedahay oo magacyada aad diidays inaad sheegto u qaatay miya yarka xiriirka wala wuu shaqeeyay shaqo baa galay inaan qof kale aan hadal la wado asaga baan baan u sheegay uu qaatay taas iska dhaadhici bilaadan waaye iska dhaadhici inaan kala taaniya xarib la leeyahay iska beenaa u sheegay okay adigana markii qof ay la jooga lagu dhahay qofkaada inta uusan joogan aad waxa is dhahdaa waa qof kugu dhadheelay misna
ama yani waxaan inuu qofka igu ciyaarayo baan ka soo qaaday bas kana qofkayga inta mid jooga neer qofkaan wiilkana ibaankana Nairobi ku sugan yahay soo anigana Nairobi aan ku suganahay wiilka wada soconana Nairobi kuma sugna saas la aniga shaqo wuxuu ii galay waxaan dhahay qofkayga ma la joogi kara ba aniga waxaan waxaan dhahay qof soo dhaqanka jooga say inta qofkaaga ay agtaagan waana aniga waan keeni waayay صح marka saas la aliga doo isku baadkay yani oo mid kale taani social media oo ninka kala barkaagi ku qofkaas oo si tamaanku meeray uu ka tijaabinayaan islaan beheedin okay marka hada wiilkii aad rabtaa inaan ku wacno dhanka aan xalinimi oo mashaakilka jiro ina wacdiid waa isku wali ku xanaaqiyayna wacdiid oo haduu ka yeelaayo heeda atraay sida xalku isaga atraayay kaga soo noqon karo ina hada kulli xalka gaartaa jeclaha okay bas insha Allah saa wacayna asaga maartota aan maartay la xiriirina marka wacno kadib kugu soo celinina lambarkiisana waa noo soo diraysa si asaga wacno wuxuu tabanayna asaga uu sheega aan maartay isku dayayna kadibna inaan xalino oo aan raali gelino marka noo soo dhamaato kugu soo celinina iyadoo groupka lahaan oo WhatsApp-ka groupka lahaan kugu soo saarayno ma fahanteen isla markaasna wixii qalad asaga ka tabanay lagu sheegaya adna wixii maartay ka raali gelinaysa qaladaadkaada gooniga okay marka insha Allah lambarkiisa aan soo diraysa إن شاء الله هي ودعايا هلو السلام عليكم السلام ورحمة الله وسي وانا ستا يعني ما شاء الله رنيه هو ويلي يوتيوبر نيروبي جوجو واقر magacayga farxaan Allah واقر marka waxaan barnaamij waxaan maarta sameynaa la dhaho saamax walaalka ama walaasha xaliyaha khilaafaadka واقر waxay soo wacday gabar isku dhacdeen hawra xiriir u heedeen marka ay sheegtay inaad isku maarta dhacdeen inaan maarta barnaamijka isaga ahaa aan gudagalno oo ayadana la xaliya aan rabnaa ma fahanteen واقر marka niyo gabadhaas soo wacday ma aqaano sida isku dhacdeen way sheegtay adigana ma hadee aan maarta noo sheegto noo sii faahfaahiso adigana meesha aan ku raali gelino ayaan rabnaa ma fahanteen marka bro gabadhaas kulli gabadhaas soo wacday ma jirtaa oo itijaabi okay yar waxaan soo wacay oo Nairobi joogo Ridwan Isaaq la dhahayo hay marka waxaan dhahaynaa gabadha jirto oo Nairobi joogta anina waxaan joogaa South Africa hay ka door muddo wada soconay 3 sano waxa la jiraan hay sanadkan dhamaada afar loo tahay صح marka waxaan ku dhahaynaa gabadha sida hore ma ahan marka itijaaban ku dhahay inay magaceedu ku dhawaaqo doonto ay inay qof kale ku dhawaaqo itijaaban ku dhahay ay marka sida dhimaan ugu dhahay waa wacay gabadha marka uu la hadlay marka bishaaro ma lagu dhahay waxay dhade ku dhahay oo wiil asla socotina agteeda jooga ay marka magaciisa inaad sheegtid baa rabaa ay marka saas la soco dhahay marka magaciisa inaad ku dhawaaqdaan rabaa sax ay magaci iyadana kuma dhawaaqin magacana may sheegin telefoonkii ay ku jartay 2 jeer 3 jeer amalan ay ku celceli way ku jartay garad صح ya sagana waxa dhahaynaa gabadha ana dhawarta gabadha ugu ceelan 3 jeer amalan markay ku celceli marka dambe telefoonka gabadha ma qaban macnaha jawaabna kama helin hala dhahaa marka magacaadana may sheegeen marka gabadhaas ay taana waa dacad kuma hana soo dhaay kullee saas ugu dhaay ma garan
okay markaas magac kale ma sheegtay misna may sheegin telefoonki bay ku jartay magaca may sheegin marka waa ka yar shaki magacani may sheegin magaciidana may sheegin marka ani waan ku xanaaqay marka dambe telefoon ay iga soo wacday WhatsApp iga soo wacday ani kama qabin oo ku jaray marka daani dhan xanaaq ma hane waa zaid habeen kasta ma saxan mugar habeenkaas maxaa ku seexatay sidee ku waa maar dareenkaaga wallahi murug ma dhata hurdo ma helin wallahi shaqada ta kama barqaban bata ay soo shaqada ta custom ka ta isku yar dhicina ta badan ay ana qadar ay marka shaqadaas murugoodi sayid murugoodi lam anina man wacin lambarkeeda waa toor sabareeda kulli waa iska tooraba shan u saxsino baa ka qaado ay go'aan gaareed صح marka sidaas ay dhacday marka waxaana ka dareemay horaanba telefoonka marka waxaan ugu jirtay way ugu jiray oo mashquul aan nahay marna xil dambe ka baxdaa aan ku dhahanay yaray maxaa xilkaaneed waxa u gaarsi ma qof kale ma shukaasanaysa ma ay leedahay marka mid ay sallasteen aan la hadlay dhaaysa marka dhaxan ay kulay Nairobi bay joogtaa mana ka sayana halkaan aan joogay marka waxay soo binaysaa mana aqaani marka dareen baa igalay marka waa yar shaki xilli adi qadka ku jirin iidan qadka kaaga dambaysa okay haye marka ana marka saytade iyadoo wilisaas oo ka shaki qabaan Ridwaan iyo waa saasay sheekada ku imaada Ridwaanka hadda marka go'aan ka qaatay iyada marka sawiradeeda iska tuurtay ay la go'aan ka qaatay inaa marta inaan soo laabanaa marri waa go'aan dheer ka qaatay laba rakac oo tukulata ay inuu ilaahay baaska mid kale ku buuximiya ay la bilaay saasay labada rakac markaan tukadana marka dambe culayska dhan ilaahay iga qaaday xasuusta dhan saasay ku dhamto labada rakac markaan tukado ilaahay baray okay kulli hada sicalaas kuma wada dhamaadaan kasto aad rakacooyin salaad tukatay haddana gabadhii inay ku jeceshahay idana soo wacday noo sheegtay oo maartay in xalino oo sheekada aan soo gabagabeyno oo meeshii heshiis aan ka dhalino bal adiga sidee u aragtaan iyo xaaladda inaan dhaxgalno si dhalinyaranimo ah aan maartay ku xalino wallahi ma soo bikartaas ugu adagtahay go'aan aan gaaro way ay inaan soo celin ma soo celin kartaa mar dambe ma soo celinaay ay waan gaaro way mar rabi okay kulli hadda ugu soo celata ma jecel kulli hadda kulli jaceelkeeda qalbigaada kama dhamaan 3 bari waa muddo aad u yar welina qalbiga maart iska maad kala jareen adina go'aan qaata leedahay sidee xalkad aan ku maartay ku dabageli karnaa walow idan ay soo wacayso ay leedahay walaalayaal ninka wiilkaas la heshiisiyo oo naxaliya wallahi ana ma soo bin kiraada ana go'aan gaarey ma xalay ka tankin ana horta go'aan gaarey baraan ka qaaday lambarkeeda tawatur sawireeda tuuraan ku dhac taasi tahan hadda anagoo dhalinyaro ahaan ku soo wacanay oo kula haysano iyada xaalkii inaan maartay meeshii xalino si dhalinyaro ahaan aan maartay u galno ayadana qaladkeeda u sheegno oo hadda maartay aan wacno gooni u iyadana qaladkeeda u sheegno faanti adigana maartay tawashadaada waa aragnay iyadana maartay tawashadeeda kulay hadda wax tawasho inoo sheegan kaliya in qaladkaas dhacay oo san magacna ay ku dhawaaqeen way noo sheegtay labada meelna maartay adigana ku xaal marna lagu raali galiyo idana maartay lagu qayliyo hadda ku soo wacnay si dhalinyaro ahaan xaalad u galno bal walaalow hadee maad nagu taageertid ida meeshaas wallahi maqsuudin karaadetaas aye okay si hadda maartay dhalinyarnimo oo codsanayna anaga nin walaalkeena tahay kulay wiil dhalinyaro tahay iyadana qof ku jecel hadda ka dareemayna qof ku jecel waaye oo marna aan ka maarmin because qofka duusan ku jecleen oo hadda dana kale ee lehed kuma soo xiriireen kuma soo wacdeen yani anagana nama soo wacdeen nama dhahdeen maartay na dhaxgala oo kale meeshan heshiisiina ma dhahdeen ma fahanteen صح
adigana hadda heer weli oo qalbigaada u ka tirmamaad gaarin oo weli jaceylkii 3 maalin ah waa aad ay u yartahay in qalbiga ka tirmin waa dareemi karnaa ma fahanti صح marka walaalo si dhalinyaranimo kuula haysanaa inaad go'aankeeda ka laabato oo aad gabadhii dib u soo la xiriirtaan oo xiriirkiina dib u soo celisaan oo aydan runta u sheegno ayaan si dhalinyaranimo kugu haysanaa ma fahanti marka niyo hadii maartay kulay qalad waa dhaca qalad qof uusan ka dhicin malaha qaladaadka waa dhacan hadda waxaan noo sii darnaan lahayd inay qof kale magaciisa sheegto adaysan qof kale magaciisa aysan sheegin magacaagana aysan sheegin kaliya ay ka gaabsatay taas hadda waa iska dhib fududahay dad kale oo qof kale magaciisa sheegaano imaanayay oo maartay aan mid ka sii adag aan xalinayna ma fahanti marka kulay hadee wax waliba ilaahay dartiisa lagu dhaafaa iskaga cafiyaa qofkii ilaahay dartiisa inaad ku cafiso si walaalnimo anagana dhalinyaranimo aan kula haysana kulay markii dhalinyaro leeyahay qaladaadka waa iska qabtaa wixii isku qabsadaan waa la isku daayaa ma fahant qof un baa tanaasulo adigii aad go'aan qaatay waxa la dhahay horaanba waxa loo dhahay markaad xanaaqsan tahay maartay wax go'aan ah qaadanin ama maartay markaad faraxsan tahayna balanqaad ha sameeynin marka uu aad xanaaqsaneed isla xaaladaas oo go'aankaas qaadanaysay haddana aad maartay aad degan tahay hadii si dhalinyaranimo aan kula haysano oo aan kula qabsanay waxaan jeclayn inaad noo tanaasusho oo aad gabadhaas maartay aan dib u soo celin xiriirkiini sidaasna walaalo ilaahay dartiis insha Allah gabadhaas ilaahay dartiis ku cafi haddana dib ina u soo laabataan ayaan jeclaan lahayn may dhibba kugu ahaato dhibba kugu ahaato walaalada dhalinyaro Soomaaliyeed islaam waxa ilaahay dartiis ku loo qabsaday wax waaye dhibba kugu ahaato markii aan go'aanka ka soo laabato insha Allah rajaynayna صحيح يمكن ذلك وأن قرتنا وإذا وكان كذا محلها وإذا كان صوّع ده مرة وحاس عملت كلها يا مسؤول كذا مركز kulay anaga hadda iyadana lama joogto oo isku meel lama joogno aqoon saasna suma siilin telefoon leena laga soo wacay golow hadda inaga dheertahay xaafadaha Nairobi zaad u kala dheeryihiin xaafad dheer degan tahay seenoo sheegtay waa la hadleena hortaada hadda kor groupkan soo saarayna yani group kol ahaan soo saarayna hortaada balama ka qaadina ma fahamtay waagan ayada balantaas qaadayna idana ku raali gelinaysa ma fahamtay waagan kulleede qof islaam oo qof weyn adu balan qaadana kulleede wixii inkastoo iska dumar yihiin waxaan rajaynaynaa in khayr ay ku soo dhamaadaan xooliina khayr ay u socdaan hadda ka dambe ma fahamtay waagan marka walaalow hadee insha Allah saasaan maartay rabnaa groupka ma soo saarnaa iyadana maartay waa inta balamaha ma uga qaadnaa ayada aan soo saarayna waxaan leenahay qaladkaada qayro oo maartay wiilkaasna raali geli balana qaad inaysan dab ugu laabanaynin دعاية الو الو بشارة وانا مقشمه اوكي نوردين هذا كولكو كجرا كولكا جروب انا soo saaray maartay waxaan rabnaa inaad adigana meeshan ugu balan qaatay in qaladaad dambe soo laabinin waxyaa uu ka tabanayna ay tahay maartay inaad habeenkii aad maartay qadka kaga dambayso dhowr jeer ku arka telefoon dhowr jeer ka qabanin mid xigtana ay tahay inaad qaladka oo magacaad sheegaysay marka dhamaantood inaad ka raali geliso aad meeshan dib aad uga laaban meeshan ku balan qaatay ma fahamtay marka saasa rabnaa asana koolku saaran meeshan inaa ku raali geliso horta raali geli kadibna balantaas ku soo laabano la hadal asay way maqlaysan assalaamu alaykum wa alaykum salaam saka ya
okay meesha ku raali geli yarkan nuur maarta hadda maarta anagu hadda aan fadhino inaan raali gelisaa rabnaa marka raali geli qaladaadkaadana ka raali geli may waqaateen hadduu intaas uu qalad u arkay qaladkayga waqaataanay raalli hawale qaltooni afartayga raalli hawa bas qalad uu dhacaa bilaadan ay samaha aan baa raali gelin diyaaray tahay halkan سو في عوو علي كو مقلنا لغا هلا مي مقلمية طبعا هذا الكسم وعلي هلا نورتي شاء هلا ممكن مقلم نعني قرر لنا هو كويري بقلتوني أفر عليها مرة ما دعيسة إن شاء الله سو أنا ما نفسي ليلين تاكسيني دعيسة فهمت qalad uu dhici karaa carabiya ilkaas haya dadkeena raaliga intay iga noqotaan jeclahay mar walba farxadeena soo celisay xarirkeena barkaa kasii bilaabano saa jeclahay sawaara warlabada may dhacdaa ما دعيت إن شاء الله ما دعيت إني دعينا كوفا ما دعيت اوكي نور gabadha ka raali noqo 114 uga raali noqo maqasha اوكي waxay qaladaadkeeda qaladaadkaadana waa ku sheegay inaa hore maarta wuxuu dhahay telefoon aad ka qabanin waxaa kaloo jirto in dhowr jeer aad qadka maartay weynimo aad ku gaartay saqdhaxe waqti dambe asana uu ku jirin waxyaabahaas dhan aad ku noqonaynin u ballan qaad wiilkan maartay mar dambana qaladkaadan uu dhicin u ballan qaad basharo hadda kuumaya wallahi wax saaqalada hadda u sii malahan soo habeenkaas uu sheegayana marka la haday wiil la dhashan la haday soo codadkaas la wadaagna taa waa u diray ما jirta marka telefoon ka qaban weysata ku soo waxtaa dhowr jeer telefoon kamera ka mashquulsanahay laakiin inta badan isaga waqtiyaabo okay meesha uga ballan qaadina waxyaabahaas dambe ay soo laabanayeen wiilkan aad maartay ku jecel yahay aadna jecelkii u xiriirisi ama qasha أنا ماشي أو بلانقات إن ما أرت هذا واحد مرة بيسوي لاعبين مقعدة كده والله نستدعي مرة إن شاء الله ساجع لها أنا مرة بالبوقف بالعادة إن نقول من حين يتجفوا كده مجعلي إنه سجى أنت وسي أنا نرى لك إنه يجحوا مع هذا مجعلي مرة حالي هاي مرة ما دعيسه يعني سهر عليها يجا نقضين يدعين أنا جاوب بالقاضي أوكي إن شاء الله نور واق بش صافي لا أنا أقبل جعلكن 6 سنة سو سعودة أم 6 سنة برسو سعودي أكادينا هل بعد لو لسي وقت أتكسو قادتين ولا لنا ولا هي قلد نوادع مركا وحان جعلان لها مردم بندوسان مارت قلادين كد حدعين بلادنا ليه قلد وصول لابن كرا لكن دليل ان لو تجينا الاسرائيلي قال قفكو قلدن yahay u raali gali hadii nuur u qaldan yahay bishara u raali gali bishara hada qaldan tahay nuur raali galiso oo telefoon madan la iska qabto insha Allah bishara ma هاي إن شاء الله وفي عنا كتلت إن شاء الله خير لك إن شاء الله برنامجك دوايا مركا أصحابت مع كل ذي بشارة دي كل أصحاب عديلة نبغى بشارة كذا قف مدام تجعل هاي إن حليها قف جعل قف على بيتين وجمهنا صوت قف جعل هاي استهاي بدي وقت السيلالي أنت تجمعوا بواب سيارة سيدا سيجر رواي سعد الرشاة والسير مهنا قدام إن شاء الله جعل كل ما رجع لها إذا عدل سكون محضر بعد مثلا مهمة
walaal ani waxaan dhihi lahaa intii dhegeysanaysa iyo inta hadda codkayga maqlaysa waxaan leeyahay waxa weliba farxad laga dhigo insha Allah wanaag waa inuu ahaadaa barnaamijkana aad u fiican yahay labada qof inay saamaxaan ee qalbiga isku furaan hataa haddii la kala tagay ag iyo maxay dol cadeed la kala tago oo uu kala isku furo waxa fadana la isku furo haddii wanaag haddii jecel noqdo hor loo siiyo okay insha Allah ayade wicitaanka meesha laga sii bilaabo insha Allah barnaamijka tan halaas ku soo gabagabeynayna waa idin salaama dhamaantiina meeshiina xiriirkana ka sii wata qaladaadkana la iska ilaaliyo insha Allah mid ka mid ka qaldan raali geliyo duu qalad daal insha Allah aywa idin salaama haybayo ka qan noro ay brada insha Allah gabadhii taas ka raali noqo adigana gabagabadii barnaamijka marayna wixii aad nagu dhiirigelinaysay wixii asxaabta aad dhehayso ku daawanayso dhamaan waa ku furan yahay hadalka wallahi afka waxaan leeyahay waa salaamaya magara صح barnaamijkan waxa waa wax fiican waay oo arin fiican ma samt sidaas aan ugu bixinay okay brother insha Allah waa ku salaamayna anagana waxaan ku leenahay qofkiiba qofka kala qalad ka galo in la isticmaalo insha Allah adigana telefoonka iska qabataan dalka islaama joogo in telefoon la iska hadlayaa hebel qalad ay gashay ama hebel qalad uu galay kaliya telefoonka la isku dhageysan in telefoonka la iska qabto qofkana qaladkiisa uu qirto la iska raali geliyo ma fahanti insha Allah waa ku salaamayna in badan insha Allah barnaamijka gabagabeynayna ay brother insha Allah waa kaas alxamdulillah barnaamijkii waa uu noo soo dhamaaday labadii qof saas ayaan ku heshiisanay saad maqlisina nin kale waa u raali geliyay ama ninka qaladka laga lahaa waa u raali gelisay gabadha iyada qaladka leh dabcan waa ay raali gelisay halkaasna barnaamijkii dhankooda naga saarnaa waan ku soo gabagabeynay wayna heshiiyeen dabcan wixii xilligan ka dambe ayaga ay maartay isla xiriiri doono raali gelintana waa uu naga qaatay wiilka asxaabay waxaan idin leeyahay barnaamijka nagu dhiirigeliya nagu taageera oo meel kasta gaarsiiya inta maartay istigaashay kaliya ma ah dadka xiriirka leh waxaa jirta walaalo istigaalayo waxaa jirta wiil istigaalay gabar istigaalay wiil iyo gabar oo xataa xiriir aan leeno istigaalay ama gabar iyo wiil oo yani dad yani family oo istigaal waxa maartay oo dad isku qabo waxyaabo badan jira waalid way dhici kartaa waxyaabo badan jiro marka waxaan jeclaan lahayn inaad nala soo xiriirtaan oo aad soo wactaan si aan u dhaxgalno heshiisna uga dhalino anagana ajirkeena uga helno waxaan ugu taageeri karaa barnaamijkan waa idinka taageeridana waa inaad subscribe noo saarto like saarto share noo dhahdo barnaamijka lacagna ma intaas daawashadana waa inoo muhiim waxaad barnaamijkan daadihinayo waa wasiir farxaan waa aniga ah wasiir farxaan waxa fikradda barnaamijkan lahaa waxa waa agaasimaha Cabdullaahi Cabdirasaaq Warsame waa agaasimaha Muqaam Channel waa wiil dhalinyaro ah maasha Allah badana wareysyada ayuu ka qayb qaataa barnaamijkan aniga daadihiyo waxaan jeclaan lahaa labada qof isku dhacday ama waxay ahaadaan xiriir ha lahaadaan ama si familiyan ha isku dhacaan ama si saaxiibtinimo isku dhacaan inayna la soo xiriiraan oo aan barnaamijkan ka diyaarino insha Allah please fadlan nagu caawi taageeradaada waa u baahanahay taageeradaada nagu taageer barnaamijkan si meel dheer u gaaro dal iyo dibad nagala soo xiriir saa u jeedaan hadda laba qof oo ku kala nool dal iyo dibad ayaan maartay heshiisinay marka insha Allah waxaan idin dhilahay subscribe sar barnaamijka like iyo share tan waa dhankaaga asxaabtan ugu cusubna waxaan leeyahay gacmo furan ku soo dhawaada daawashadiina waa noo muhiim haddii aad hore noola joogtaan like iyo subscribe noo maartay noogu la dadaal lacag maahan haddii hadda noogu soo birtayna like iyo subscribe ka noogu sii raaci
waxaan idinkaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.